waxaynu ku bilaabaynaa war cusub oo hadda saaran miidiyaha Israa'iil iyo guud ahaan caalamka. askar Israa'iiliyiina oo meel ku sugnaa ayaa la sheegay iyagoo isqaban qaabinaya oo ciidan tiro badan ah in nin hubaysan oo ka mid ah dhalinyaradii muqaawamada magaalada Jiniin uu u soo dhuuntay kadibna uu soo dhex galay. mar qura ayay dareemeen in xabadu ku socoto meelay xabadu ka dhacaysana ma yaqaanaan. askartii dhexdeeda xabada ka bilaabatay. waxaa la sheegay wararkii ugu dambeeyay hadda Al Jazeera ay qoraysay wuxuu ahaa 8 askari ayay sheegteen inay halkaa kaga dhaawacmeen oo 2 ka mid ah dhaawacooda uu halis yahay. halka qaar kale oo ka mid ah dadka Falastiiniyiinta warbaahintooda soo xiganaya ay leeyihiin in khasaaruhu uu intaa ka badan yahay. ninkii marka weerarka soo qaaday ee Falastiiniga ahaa markuu nagta ka saaray ayay haddana iyagii dagaal ku bilaabeen xabad iyagii oo cabaar la dagaalamay. markay xabadu ka dhamaatayna halkaas ayaa lagu toogtaa leeyri waa la dilay. haddaba sida ay wax u dhaceen iyo tafaasiisha wixii laga qoray ayaynu barnaamijkeedu kula wadaagi doonaa. haddaba Al Jazeera oo soo xiganaysa joornaalka la yiraahdo iyo dacood axranood ee Israa'iil ka soo baxay saak waxa uu sheegay in markaa xabad lagu furay meel ay ku kulansanaayeen ciidanka Israa'iiliyiinta. joornaalkii dacood axranood wuxuu sheegay in howlgalkaasi rasaasta lagu furay uu ka dhacay bariga magaalada Jiniin. waxaana la sheegay in markaa ciidanka ay ku kulansanaayeen halkaas. waxaana weerarkaasi la sheegay in askar ay kaga dhaawacantay ciidanka Israa'iiliyiinta. dhinaca kale warbixin kale oo arrinkaa ku saabsan oo goordhow soo baxday waxay sheegaysaa hay-adda wararka u faafisa Israa'iil waxay sheegtay in ninkii howlgalkaa fuliyey ee weerarka qaaday ee Falastiiniga ahaa oo inuu ahaa nin Falastiini ah. waxay sidoo kale hay-adda wararka Israa'iil ay sheegaysaa iyadoo markaa ninkaa Falastiiniga sheegtay inuu soo gaaray meel ay joogeen ciidanka Israa'iiliyiinta oo control ah oo la yiraahdo Tayaasiir. waxaana la sheegay in meesha ay ku taalay dhinaca bari ee Jiniin. si dhuumashaa ayuu halkaa ku soo galay ayaa la sheegay. waxaana la yiri rasaas ayuu mar qura ku bilaabay ciidanka Israa'iil. marka ninkan waxaa la yiri si dhuumasho ayuu ku soo galay meesha. waxaa la yaab leeyahay laakiin eriyada diyaarada drona waxbay nimankan u kiciyaan. ninkan qorigiisa asagoo wata ayuu Jiniin ka soo baxay. Jiniinna waa meel iyagu go'doomiyeen. inta soo dhex maray uu ka soo dusay ayuu nimankii inta u yimid ayuu nagta ka saaray ilaa xabadu ay ka dhammaato. waa dagaalamayay kadib ayaa la toogtaa leeyri waa la dilay. marka waxaa leeyahay wax tafaasiil oo intaa dhaafsiisan oo miidiyaha Israa'iil ay ka hadlayaan ninkan iyo tafaasiishiisa ma jiro. inuu nin hubaysan ahaa oo Falastiini ahaa uu markaa dhibaatada geystay ayaa lagu soo waramayaa la sheegaya. qodobka halkaas ayaan kaga gudbaynaa. waxaynu u gudbaynaa barnaamijka qaybta ugu ballaaran ee aan ka hadli doono kulamada dhici doona maanta ama kulanka weyn ee dhici doona White House-ka ama aqalka cad ee Mareykanka oo la sheegayo in arrinta Gaza iyo Iiraan iyo waxyaabo badan lagu falanqayn doono. kulankaas wuxuu dhex mari doonaa saacadaha soo socda Trump iyo Netanyahu. ninkii Trump xalay barnaamijkeygii waa ku soo qaatay filimkii waa fiirsadaa filimkii loo daaray 7 Oktoobar. keligii ayaa fiirsanaa yidhi keligii. ninkii daawaday maartay dadkii xalay daawaday barnaamijkeyga way la socdeen filimkii oo daawaday. maanta marka wuxuu la balansan yahay ninkii la yidhaha Netanyahu. mucaaradkii Netanyahu ee yuhuudda ahaa ayaa warar durbaba soo saaraya oo weeraraya Netanyahu oo leh ninkaa nabad ma rabo. Trump uu ogow ninkaa nabad ma rabo. haddaba aan idin tuso warbixinta ugu horeysa ee qaybtan aynu kaga hadlayno. hogaamiye mucaarad oo la yiraahdo Lieberman ayaa wuxuu sheegay in Netanyahu Washington sababta uu joogaba ay tahay inuu fashiliyo marxaladda labaad ee heshiiska xabad joojinta Gaza. hogaamiyaha xisbiga la yiraahdo Israa'iil Baytuna ninka la yiraahdo Efgador Lieberman ayaa wuxuu sheegay in
hadafka booqashada ra-iisul wasaaraha benyamin netanyahu uu ku joogo washington ay tahay inuu fashiliyo marxalada labaad ee loo gudbayo isdhaafsiga maxaabiista iyo xabad joojinta. wuxuuna sheegay muhiimadiisa ugu weyn inay tahay inaanu kala daadinin itilaafa xukuumiga ama dowladan isbahaysiga ah koox dad kuwa ku jira inaysan ka bixin ayuu maaragtay ujeedadiisu ay tahay ayaa la leeyahay. waaye marka ninkii netanyahu ahaa marka weerarkaasaa lagu bilaabay. ninkii trump ahaana waa loo sheegay waxaa li ninkan filin ha kuu daaro ama ruwaayad ha kuu shido ogow ninkan nabad ma rabo. ujeedada uu meesha u joogana waxay tahay inuu maaragtay nimanka xukuumadiisa ku jira aysan ka bixin. smotrich ayaa ugu hanjabay wareega labaad inuusan wada hadalla geli doonin, uu dagaalka hore ka geli doono. wareegii koowaad ayaa lagu qanciyaa la leeyahay. marka hadduu isagu ka baxo xukuumadda waa dhacaysa. awalaa waxaa hore uga baxay xukuumadda ninkii bin khafiir ahaa. marka ninkan wuxuu xakaa u joogaa lagu leeyahay inuu wada hadalkan iyo waxa kan diido. waaye marka waxyaabaha laga qorayo sheekooyinkan waxaa sidoo kale ka mid ah joornaalka la yidhaahdo washington post ayaa isaguna saaki wuxuu qoray. wuxuu leeyahay netanyahu wuxuu isku dayi doonaa inuu ka helo trump damaanad qaad ku saabsan xamaas. washington post waxay leedahay mas-uuliyiin israa'iiliyiin iyadoo soo xiganaysa netanyahu trump wuxuu ka rabaa damaanad qaad xamaas inaysan qayb ka noqon doonin magaalada gaza dadka ka talinaya ee joogaya. haddaba maamulka maraykanka ee cusub ayaa waxaa hadafkiisu u yahay sida la leeyahay mid ka duwan midka netanyahu uu doonayo. waxaa trump iyo kooxdiisu ay doonayaan in markaa la dhammeeyo dagaalka hadda socda. u fiirsada marka meesha qodob muhiima ayaa iyaduna ku jira. waxaa leeyahay ninka netanyahu ah xujo saara ninka la yidhaahdo trump. wuxuu leeyahay wareega labaad ee wadahadallada waa gelaynaay, wax walba sidaa rabtaana ku samaynaynaa, laakiin damaanad qaada u baahan. xamaas meesha ha laga raro, madaxdeeda meesha ha ka baxdo. xamaas meesha hadday ka baxdo oo la raro yaa meesha imaanaha qabsanaya. xamaasta niman ha la raro ku baxaa miya 15 bilooday ku dagaalameen meesha oo ciidanka israa'iil dhagaha ka garaaceen. marka hadda marka si fudud ku baxa miyay yeelayaan? marka ninkan marka marmarsiyo u raadinaa leeyahay wuu iska daba wareejinaa si nimankii ku dheganaa isaga ee mayalka adkaa ee xujada dagaalka hore ka bilaab la yidhi warkooda soo u yeelo. taraamna uu iska maslaxayo, maruu filin u daaro, maruu yidhaha xamaas intay joogaan xamaas waa khatar, filinka ma aragtay ninka marka hawshaas ayuu ku jiraa lagu leeyahy.